Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jalka maalmaha. Oofinta balanta waa astaan ka mid ah astaamaha wanaagsan ee diintu ina fartay, waana dhaqan ama akhlaaq aad u weyn taasoo uu ku sifoobay rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam, waana calaamad lagu garanayo ruuxa iimaankiisa. Inta badan islaamku waxa uu ku dadaalayaa sidii uu uga shaqayn lahaa horumarinta ruuxa muslimka ah si loo helo horumar la taaban karo dhan weliba ee ka mida naftiisa. Waxyaabaha ugu waaweyn ee islaamku uu la yimid ayaa waxaa ka mid ah oofinta balanta. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu amray meelo badan oo ka mid ah quraankiisa kariimka ah in balanta la oofiyo. Waxa uuna ku yidhi suuratu Israa aayadda 34 oofiya balanta, maxaa yeelay balantu waa mid la iska su'aali doono. Waxaynu ka fahmaynaa aayaddan in oofinta balanta ay ka mid tahay waxyaabaha la iska su'aali doono maalinta qiyaamaha. Ballamada waxaa loo qaybiyaa laba nooc: balan u dhaxaysa Allah iyo addoonkiisa. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu amray addoommadiisa in ay fuliyaan balankii ay kula galeen markii ay ku jireen dhabarka Nebi Aadam calayhi salaam. Waxa uuna ka doonayaa in ay fuliyaan sidii uu amray. Balankaasna waxa uu ahaa in isaga oo keliya ay caabudaan, rabbinimana u aqoonsadaan. Mucaad bin Jabal, Allah ka raali noqdee, waxa uu yidhi rasuulka ayaa waxa uu su'aalay, waa maxay xaqa uu Allah ku leeyahay addoommadiisa? Waxaan ku idhi, Allah iyo rasuulkiisa ayaa og arrinkaas. Markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, xaqa uu Allah ku leeyahay addoommadiisa waa in ay caabudaan isaga oo keliya. Mar labaad waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam weydiiyey Mucaad, waa maxay xaqa ay addoommadu ku leeyihiin Allah? Waxa uu yidhi, Allah iyo rasuulkiisa ayaa og arrinkaas. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, addoommada xaqa ay ku leeyihiin Allah haddii ay caabudaan waa in uusan cadaabin. Nooca labaad ee balantu waa midda u dhaxayso addoommada dhexdooda. Balanta noocan ayaa kala duwan, waxa ayna noqon kartaa mid u dhaxaysa laba ruux ama in ka badan, balse waxaa lagama maarmaan ah in mar weliba la oofiyo markii lagu heshiiyo ballan. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku ammaanay suuratu mu'minuun kuwa ilaaliya ammaanadooda iyo ballamada ay wada galaan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay ruuxa aan balanta oofin in uu yahay ruux aan iimaan lahayn. Haddaba maxay tahay waxyaabaha kugu saacidi karo in aad noqoto ruux oofiya ballanka? Marka hore, in aad ogaato in ballan oofintu ay ka mid tahay iimaanka. Ruuxa ilaaliyana ay daliil u tahay inuu iimaankiisu wanaagsan yahay. In aad ku kasbanayso jacaylka Allah iyo u dhawaanshadiisa. In dadku ay ku aaminayaan dhexdoodana aad ku yeelan doonto subcad wanaagsan. In Allah uu kuu karaamayn doono maalinta qiyaamaha daartiisa janno maadaama aad noqotay ruux ka soo baxay wixii Allah uu ku waajibiyey. Guntii, in aad ilaalisaa ballanta waxa ay keenaysaa in aad xaqiijiso nolosha dhabta ee adduunyo iyo aakhire intaba. Waxa aadna ku gaari doontaa in uu Allah ku jeclaado, dadkana dhexdooda aad ku yeelato sumcad wanaagsan.